galayna almost $1,000 bed marka waxaan ka sheekaysanay كليجي باب أنا قف صومالي كليجي ها مرة مدونا إلى أفر قف بنكو هين تيتو سيدان كلن كيقول سعودي أيا وانشة كيسنا مرة قبل بعد نتويكين كمر كيل سميني قبل أسكوسو هكاجني قبل دي وانشة كيسنا بس قبل دي وحنقول حكيت كتمت مركز وحي قلت لي وحكي مد إيرلاند مركز وحنقول لي بحق قفتها مركز وحي تري كومباني ماركتنا اللي هي أوكي وحنقول لي كلاينت كاجو حكيت جوجان مركز وحي قلت لي US وصوب ما حد US كدورتي بدري haddii aan wadankayga dadka jooga wax ka iibiyo way igu tiri who are you ayaa tahay baa lagu qornayaa batay ma haysata certificate maxay ma haysata office weyn ma haysata laakiin haddii aad Mareykanka markaan dadka Mareykanka wax ka iibinaya bay tiri people say me go and get it waxaan rabaa inaan sameeyo kaalay samee markaan saaxiibayaal waxaad ku nooshihiin one of the greatest country of all humankind ama all human history markay noqoto in terms of education haday noqoto businesska haday noqoto opportunityga haday noqoto mindsetka haday noqoto 42 wadan ayaan u safray wali ma arag meel nacam qofka u saamaxaysa inuu business dhisi karayo business korin karayo multi millionaire noqon karayo environment uga fududo US adduunka jirta buuligii ma arag including Europe iyo wadamada developerka sida dareedad ayaan ugu dooranay inaan Minnesota ku qabano the Baraka Business Expo oo ah carwo ganacsiyeed weyn oo hal maalina oo la sugi man doono haday noqoto training waxaan qaban doonaa training ku saabsan marketingka iyo AI-da iyo social media waxay man doona go high level ah $1 billion company ayaa teamkooda Allah msaan noo soo diri doona oo kugu train gareyn doona AI iyo social media marketing iyo Allah msaan sad automation ku isticmaalaan sidoo kale waxaan casuuminaa speakers ka hadli doona mawduucaas haday noqoto leadershipka haday noqoto sida koriimo sameeyay hadaad business leedahay ama aad rabtid inaad business bilowdid fursadii ugu weyneed ku bilaabi lahayd hadaad business leedahay inta badan markaan entrepreneurs nahay ma haysano environment aynu ku dhex korno ma haysano dad aan saaxiibanahay oo la korno oo koriimo la sameeyno kulanka London aan ka qayb galay wuxuu ii save gareeyay 5 sano oo hard workina aqoontii iyo xirfadii aan ka soo bartay saaxiib sida dareedeed ayaan xagan ugu qabanay kulanka ma noqon doono kulan Soomaalida Mareykan degan kaliya toban kooban waa kulan ay iman doonaan corporate waaweyn bangiyada waaweyn ee wadanka Mareykanka ay iman doonaan dukaanada waaweyn ee alaabaha iibiya groceryga ha noqoto waxay iman doonaan real estate baa iman doona waxay iman doonaan logistics waxay iman doonaan any industry 300 oo business 300 oo entrepreneurs ayaan hal meel isugu keenayna hal maalin oo waxay noqon doontaa excited hal maalin oo waxay noqon doontaa why aan ugu koobnaanayna kaliya dad Soomaaliyeed wax ka iibino inagoo joogno wadankii ugu fursadaha badnaa adduunka xagan kumaynu soo gaarin survival xagan waxaanu ku soo gaarnay we need to think big and inaan fursadaha wadankan iyo fursadaha adduunka yaala ka yare xagan jooga markuu ganacsi bilaabayo